dhagaxtuur waxay ku taallaa degmada Waaberi waxayna ka soo horjeedaa xarunta golaha shacabka waxayna dhinaca ku haysaa masaajidka isbahaysiga leegadu meel walba isaga timid Soomaali shanta gees baan isagay waxa markaas dhacay dagaalka dhagaxtuur 5 Oktoobar ayaa dhacay halka dadka lagu dhaay Soomaali dhagax bay ku tuuriyeysay Ingiriis magaas dagaalka dhagaxtuur baa dhacay 5 Oktoobar 49kii buu dhacay dad badan baa leegada wala dhaawacay dalkana bandu baa lagu soo rogay xaruntii leegada waa la xiray central committee waa la wada xiray kulli waa shacbigu waa si xoogsadeen waa si kacay oo in Talyaanigu ka soo horjeedo xabsi iyo dil iyo masaafirka shaqada laga eedo ninka laga waxa soo dhamul bilaabo oo qabiilka iyo waxa ka shaqeeyay waxaan leenahay taala xasuuseed kasta ay waxay xambaarsan tahay hawlo taariikheed oo iyada u gooni ah yani hadii midna dalku uu 100 taala leeyahay taala walba macna gaar ah xambaarsan tahay oo markii la aqriyo laga fahmaayo oo dadku ay garanayaan waxa la rabaa marka taaladaas xasuusta gaarka ah ay leedahay dadku markay arkaan inay ka dhehdaan baa la rabaa oo laga aqriyo karo ama laga fahmi karo hagarka bayrayaashii gacantooda buuxsaday baxsan xaawataaki iyo dhagaxtuur ma barateen burji iyo halgamayaal inta biladna soo maray bilad iyo wanaag badan bugaagta lagu qoray bulshayahay ma barateen taaladan qiimaha badan ayaa dhismaheedii soo dhameystirmay astaantii loogu talagalayna la saari doonaa dhawaan waxaana qof waliba oo muwaadin ah waajib ku ah inuu daryeelo isla markaana ilaaliyo astaantan qiimaha badan ee qaranku leeyahay dalka waan wada leenahay waana inaan ilaashanaa xarumaha danta guud iyo goobaha taariikhiga ah